hello وقمية حديد soo dhowr video baan meesha soo dhigaya dhowrkan video aan meesha soo dhigo anigoo dharkan xiran baad arki doontaan because waxaan rabaa maanta dhowr video inaan ka gaarsiiyo yeah so home waxaan imshadano and horta waxaan rabaa kaariyo wax baan aqriyay waxyaalo badan baan sameynayay maanta yeah videoyadaas ay ku saabsan yihiin so make sure inaad daawatiin yeah وهذا ربتين ده هذا ربتين هذيك اللي يا كو قصبة يا سماها دونك الحربة اللي هي so and واحد ربع برطمانتها and ما دام جمعتها هاي on program يدور ترد بلابي and شيء كذا محرم الشغل تقولين عن كهذا ولكن it's perfect today عن كهذا and وحين كتشرنا محنكو إلى هاي وحين كتشرنا هاي 15 مية مس 14 بشي محرم وافرتي بلود إسلامك ليان للدجالمين سومعها Soomaaliya waa arkaysaa buuqa ka taagan iyo isfahan waaga ka dhacay meesha marka waxaan sir bal videogan intaadan kaara ka bilaabay ka gaarsiiyay so dhowr wax baa jiro horta magaaladaysaan last year intuuna dagaalka laascaanood bilaabanin right ila waa dagaalkii big deal laga dhigay Soomaaliya oo waa dagaalkii farasyada layna saaray yeah farasyadan haddaad garanaysid macnahooda and waxay dhahaan the four horsemen the apocalypse yeah of the four horsemen yeah and waxaan soo xasuusta magaceedii naagtii maxay ahayd maxay ahayd magaceedii ayaan xirsi waad garanaysaa naagtii ayaan xirsi group waxay la fadhiisan jirtay dhowr ninoo diin laawayaala soo maaha oo scientist iyo waxaasay la fadhiisan jirtay because I used to listen to her very hore 15 years ago markay soo caan baxday and waxyaalo badan oo you know aan ku waxyaalo badan oo saxna way sheegtay dhowr jeer laakiin badankeedu waxay siyaasad bay u badnayd right because dad baa siyaasad iyada ku push gareynaya so anyways waxay la fadhiisan jirtay niman isku bixiyay the four horsemen of the apocalypse now the four horsemen kan laga hadlayo waxay dhahaan adduunku markuu dhammaanayo waa afartan nin afarta faras kala duwan yaa adduunka ku baabiin doona yaa intaan adduunka lala laabin marka nimankaas waxa magacaas ay isku bixiyeen I don't know magacyadooda halkan aan kusoo qori doona I don't know inaad garanaysin nimankaasay la fadhiisan jirtay and and then dagaalkii laascaanood markuu dhacay dawada arkaya faraskii meesha laga taagay caalankii faraska meesha laga taagay so farasku waa maxay faraska haddaad u fiirsatiin and the four horsemen kan waxaa jira faras cas faras cad faras madow iyo faras maxaa la dhahaye pale ah oo board ah yeah basically board ah yeah marka afartaa faras ba midba wax buu ka turjubayaa yaa faraska casi waa dagaal iyo dhiig faraska cadi waxa weeye conquest iyo dhul riix iyo irriix you know dhul la qabsanayo ku saabsan yahay faraska madow obviously waa dhimasho iyo geeri faraska kale boardkana de waa faras isaguna dhibtiisa wata yeah marka farasnimadu waa waxaas waa farasku waa wax farasyadu sheekada farasyadu waa concept ama idea wax lagu baabiinayo wax lagu conquer gareynayo wax lagu qabsanayo oo dadkii hore waxay isticmaali jireen waa markab oo kale you know waqtiyadii hore markabya meelaha lagu tegi jiray through the sea you know taa wixii ka horreeyey waxay ahaayeen fardo soo maaha so sheekada farasku waa taa sheeko fiican ma aha magaalo madaxdana soomaalidu maxay tiraa faras magaalada yeah wild west waa Indian iyo cowboyskii sheekada Indians iyo cowboys so and marka sheekada waxaan ku keenay waxaan soo xasuustay dartii hore Soomaalida right bishan ay ku jirno imika muharramka dad u fiirsatay 4 bilood ee heshiis la saxeexday islamically oo you know la isdagaalayn oo la isku diyaarinayo nacam barwaaqada meaning
waqtigii wax la beeranayay weeye marka inaad ka faa'iidaysto waqtigan sidaad sanadka soo socdaa dee wax aad cunti iyo wax cabtid u heshid ila waqti baa jira wax beerashadu waqti baa la beeraa somaa guga around the guga time and so anyways maxay ahayd sheekadu waaba iloobay meesha u socday marka gartii hore soomaalidu waxay ka dhalatay ceelka ama barkada geelu dee biyaha ka cabo halkaasaa la isku leyn jiray magaalo kastoo markay bilaabmayso waa inay ceel la qodaa daan magaalay noqonaysaa taasaa lagu leeyahay faras magaalo so waa meel xoolaha iyo fardaha iyo geelu ay biyo ka heli karayaan markaasa meesha magaalo noqonaysaa so gartii hore soomaalidu garta qofkani wuu qaadi karaya waxaa loo leeyahay garta soomaalidu waxbay ka dhalatayba halkaasaa la isku dagaali jiray waxaa la isku dagaali jiray ceelka anaa kaa soo horeeyey anaa kaa soo horeeyey iyo dhiig baa daadan jiray marka waxaa la raadiyey xal waxa lagu xaliyo soo maaha marka halkaasay ka timaaday ninkan dee sheekh ahaa ama dee suldaankan ama nin kaaba qabiilka odayga garka qaadaya uu leeyahay adigu waqtigaadii maahe sug kani ha cabo that sort of thing soomaalidu ilaa waqtigiina sidun bay isku haysataa waa the same thing even though 2024 aynu joogno waqtigaa la tiriyo sidii rabtaba islamically 1440 baa la joogaa soo maaha laakiin dhaqankii hore soomaalida haddaad u fiirsatid waxaa la joogaa 3226 wey so kun sano iyo dheeraad baynu dadka dheernahay marka sheekada marka haddaynu dib ugu soo laabano bishan muxaram right 16 way dhammaanaysaa haba 4 bilood peacefully wayba dhammaanaya marka 4 biloodii heshiiskaa la saxeexi doono qurayshtu iyo muslimku bay leeyihiin qurayshtu iyo muslimku inagu beri baaba jirtay intan horta dagaalka laascaanood intanoo bilaaban sheekada waxaasaan usoo hadal qaaday dagaalkan laascaanood intuu bilaabay maanta waxaa socota sheeko la oranaya anagu ma lihin carab ma lihin darara iyagaa caraba darara carabnimadani waxaa lagu sheegayaa waa fahnimada iyo soomaali fahanka iyo waxa marka la carbeeyo waa inaad fahmi karaysaa nooc keliya maaha gees keliya maaha waa dhowr gees baa wax laga eegaya marka qurayshta lagu sheegayo waa inaguna waynu ka mid nahay marka waxaa la yidhaahaa 4 bilood dhaqan hore oo waxay ahayd dhaqan hore oo qurayshtii hore ay oo ummadii carabtii hore isticmaalaysa intuuna islaamku imanin meaning waxay ceelkii isku dagaali jireen bacmushtarnimada waxaas xooluhu baa la isku dagaalaya soomaaha marka waxaa jirta treaty of hudaybiya la yidhaaho heshiiskii hudaybiya biya waa ceel bay ku saabsan tahay biyay ku saabsan tahay hudana waad garanaysiin anagu waan idin macnayn doonaa okay so marka heshiiskaas la saxeexay waa heshiiskan 4 bilood aan la isdagaalin laga keenay iminkana way dhammaanayaan 4 bilood soomaaliduna haddaan isweydiino maynu fahanay sheekada ujeedada laga leeyahay mise weli waxaynu ku dhex meeraysanaynaa fahankii baan jirin lagu fahmo sheekadan islaamnimada ama dee diinta lagu sheegayo so xitaa hadaad u fiirsatid waqtiga taariikhda ku tusaysa waxaa meesha ku socdo because taariikhdu waxay kuu tusaysaa maalinta way toole dhowr isho ka hor waa laascaanood waxaa ku dhintay ninkii la oranayay dulqarnay soomaha naanistiisu ninkii waalnaaye waxay soo xidhan jiray metal outfitka soo xidhan jiray labada geesood baasha labada geesood soo xidhan jirtay waa dulqarnaynkii baa laga hadlaya sheekadii dulqarnayn dulqarnaynna waa dhul soo maaha waa dhul qarnayn 2 bilood oo ku jira xitaa 4 bilood la isdagaalay waxay ka bilaabmaan dul iyaguna marka waa dhul qarnayn qarnina waa maxay tahay geeska waa gees soo maaha qarni waa dhulkii labada qarni dhul qarnayn labada geesood soomaaliyana waxaa la yidhaha horn is the horn of Africa say ku taala soo maaha
ya geesaha shaydaanka lagu sheegayna geesuu leeyahay baa lagu leeyahay laakiin sicuna xooluhuna geesa way leeyihiin soma bulku ya reerka geesaha ku faanta horta waa habar awal you know that awal means the first and the last of Arabi but also magacii hore Bahrain loo yaqaanay wuxuu ahaa awal waa magacii hore loo yaqaanay bulka ya dibiga geesaha marka saas u fahma sheekooyinkan waa sheekooyin isku dhex jira ya stories within stories waa silsilad dheer maxaa kale so 4 bilood la dagaalameen say dadku isku diyaariyaan sanadka dee hardshipka soo socda qiyaasina in bilaa cunto u noqonin ilaa hadday dagaal ku dhamaystaan waqtigoodii ay wax beerinayeen bay seegayaan ma fahanteen marka treaty of Hudaybiyah biyana waad garanaysaa de waa biyo ya hudayna haddaynu yar fasirno huda waa maxay huda waa waxa weeye waa hodan soma wax hodana waa gabdhaha loo bixiya hoda soma hoda guidance ya guidance ku saabsan ya marka Hudaybiyah la yidhaahaa treaty of Hudaybiyah marka 10 sano heshiisku wuxuu ahaa 10 sano inaan la isdagaalin maxaa kale heshiiska ku jiray 10 sano oo trusa dee 10 sano oo la isdagaalin maxabuustoo la isweydaariyo ama maxabuustoo la kala ceshado wixii dispute ama dee dispute kasta oo is-afgarawaa kastoo dhacaba in solution loo helo inta la tegayo UN-ta iyo meelo kale diintii bay ugu jirtaa laakiin ma fahme dadku si fiican ma u fasirayaan mana la fahmayo ya odayaashan xirinaya waa in la diraa that's how you resolve the dispute so maaha maxaa kale yeah that's it laakiin bishii wayba dhammaanaysaaba inaguna xanaan kamayna soo faa'iidin ya marka haddaynu soomaynay haddii la soomayay haddii maxaan ku idhaha haddii la soomayay haddii si kastaba loo cibaadaysanayay haddaan isfahan jirin ya oo la isfahmayn oo la is-affahmayn ya mid kastaba carab qaloocan ya uu ku hadlayo af qaloocan oon daacad ka ahayn dee waxba meesha ma kasoo baxayaan soo maaha so intaas baa inala wadaagayay like I said videoyo badan oo markan xidhan kasoo fadhiyo ayaa soo saari doonaa but maxaa la yidhaha happy treaty day of Hudaybiyah yeah